عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys وأنا السلام دمانتينا سيلي هاي ملا في عينها قيارتيدا حارجينا أنا في عندي أنا وأني في عنا الحمد لله أصحاب ثقالي تصون قد وناكسن وأني صون مركلة وأني مسكينتي الوراشين رضا عبد الرحمن جنك أدنى قام خليسان أما نقدا ونيسان ورضا عبد الرحمن قيارتي ثقالي محاس ليدين ولاشين رضا عبد الرحمن وني ودا أما أريق في النسيمانتي بالقياس بالأدينك محاس ليدين أصحابتي هداني هردعو وحان وضع مانتا قصو قصة صوبيل والكي سوماليات طلع أساسين وأصحابتي مادام أتي عني وصو بندقايو طلع صو ويلك والكي إنو يهدي بنا جعل قصة جعل وقصة عني وضو أصحابتي ويلك وحكنو لهي دالك يوروب قارد نوروين قاسة أكنو لهي إسبرتين قبل ولاشيس فهمتي wax badan ay isla socdeen muddo soo sheegay 4 sano ah 4 sano markay dhamaatay wuxuu ka codsaday inuu guur wada yeelaan asagana wuxuu leeyahay runtii marka aan arrinta soo go'aansaday ayadana u bandhigay waxay leedahay aniga uma rabo walaalkay kuma soo jeedo halahaasna waxaan ku sheegay been kumana aan rabin runtii subxaanallah wax aad looga naxo qof aad 4 sano dhamaatay aan la socotay runtii aad yani wanaag isku barateen intaasna aan ku dheheenin qofka bini aadanka ah been looma sheego aan ku dheheen walaalo kuma rabi ama dan kaamalihi ama xiriirkan yani kuma qanacsan xitaa qofka bini aadanka ah waa la dhahaa runtii horta qof bini aadan adiga laguma talin laakiin waxa wanaagsan qofka bini aadanka oo muslimka ah inuu yani beenta shayga beenta ah yani inuu iska ilaaliyo runtii beenta waa aad wax u xun qofka muslimkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka xaraantimay لكن سبحان الله قبلهنا الصومالية أنت بدوي وناكسين بقولكي سجاش وحنا هل أيحن رنتي سجاشي سجال عندي هل أيحن رنتي أنت كلو في عينين لكن واجد نقار بنت كشقة يستوى ورقبلو بنت ما إسكدافتين بنت واحد في عمان أنا كمرة قوي ولا شيء يعني عبستو رنتي لكن واحد وقف في عيني قف أهلها سكرسوني أسينز أفر صلاة الأماتي أدنى أقول حلا أصوب بنيجتي ولا لي قالجة haddana yani kugu biidiiday runtii waxa xanuun xagee dareemi lahayd gabar hadii la gabar iyada yani soo wiil ilaha xanuun xagee dareemi lahayd wiil adna maxaa dareemi lahayd runtii waa arin aad u xun aniga run ahaantii Rawda Cabdiraxmaan ahaantii ilmo wanaagsana qof muslim aan inta been u sheegay waxa iga loo naafad aan ku walaal aniga kuma rabin iga leexanaan dhaho waana wax xun aad looga fiican yahay runtii adduunyada waxaa jiro runtii waxyaabo badan oo noloshaada soo wajaha oo waxyaabo beenta ugu xun ay kamid yihiin been aad ku dhaqantid wallahi aad ay xun tahay runtii taas walaalihii qaaliga ah wiilkaas wuxuu iga soo codsaday ina tala yani aan siiyo taladaas adiga kan soo bandhigay maxaa tala asiin lahaydeen anigu wuxuu leeyahay ma maarmo ayadana waxay leedahay anigu kuma rabo been halaas ku soo sheegay nin Mareykan ka yimid oo lacagta adduunka haysta ayaan rabaa inaan guursado insha Allah adigana kuma rabi beenana ku sheegay wuxuu leeyahay jaamacad ay dhiganaysay muqdisho ku taala jaamacada muqdisho kamid ah jaamacada banaadir ayaan dhiganaysay say sheegtay oo dhahay bilka lacagta jaamacada ay ku dhiganaysay waxay u baahato shoppingkeeda ayaa soo diray oo leeyahay 4 sano dhamaatay runtii marka jaamacada u dhamaatay shaqo ay dhahaysay isbitaal ma sha Allah caafimaad ay baran soo sheegay runtii haddana wuxuu yiri yani soo kala firay soo cusub la soo baxday runtii walaalay qaaliga ah maxaa tala siin lahaydeen aniga waxaan walaalkay qaaliga ah tala wanaagsan oo kulli talada markaas aniga u wanaagsan aan qaadan lahay ayaan ku siinayaan dhahay ana waxaan jeclaa walaalay qaaliga adika inaad tala aad yani markaas isleeyahay macquul qof walaalkiin ah loo qaadi karo inaad siisiin walaalay qaaliga ah runtii ma wanaagsana qof walaalka ah ina been loo sheego ama qalbiga laga jabiyo runtii qalbiga waa dhaawac waa shay aad u xun adiga waxa u jeeda dhaawac yani qofka bini aadanka wax banaankaas wajigiisa ama ka dareemayso markaas ay u jeeda qalbiga bini aadanka waa xaanshina mar haday wasaqoodo bas way go'aysaa qalbigana uu dhaawacmaya runtii walaalihii qaaliga ah sida gabdhaha walaalihayga ah iyo wiilasho dhamaantiina igu xiran waxaan iga codsanayaa in qof bini aadan ah qalbiga aan laga jabin waayo adiga waxa u baahan tahay biri nolol iyo mustaqbal iyo aayatiin iyo farxad u baahan tahay sax runtii hadii adiga maanta farxad u baahan tahay qof walaalka ilaahay inuu ku siiyo daacad ahaa qofka bini aadanka ahna adiga waqti waa guurkaaga dib u yeelan kartaa yani noloshaada wax fiican u raadsan kartaa waxbarasho heer nolol waa raadsan kartaa muxuma taas waa adduunka ilaahay ku dhisan laakiin ina yani qof bini aadan walaalka ah oo haddana muslim ah ina qalbiga ka dhaawacdo wallahi waa shay aad uga fiican yahay sida aniga qabo runtii walaalihii qaaliga ah waxaan u maleynaa fiidiyowga inaan ku dheeraaday
waan iga raali gelinaya haddaa video wax qaldan ay ku jiraan asxaabteyda idinkana waxaa ka qabtiin oo dhihi laheedeen wiilkaas talo wanaagsan asiin laheedeen usoo gudbiya ila soo xagga commenta igu reeba asxaabteyda qiimaha badan leh waxaan rajeynaa dhammaantiina inaad ka heli doontiin muuqaalkayga dhammaantiin xog ayaan ni jeclahay waxaana leeyahay one love guys assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu